marxuumadii ciidanka qaranka ka dhintay geesiyaasha ahaa ee gacanta ka xaq darani dishay ninku markuu dhinto kolley soo noqon maayo laakiin sida loo maareeyo ama loo xalliyo uunbaa ama lagu caafimaadaa ama lagu bukoodaa moogtahay mana odhan karno dee dawladdu way ka dambaysay ma odhan karno oo dee dad dhimanayaynu nahay laakiin wixii falkaa ku lug lahaa nooc kastaba ha ahaadee meel kastuu galo wixii la hayana waa la hayaa la tuhmay waxa kale waa lagu daba jiraa ilaa gacan ku dhiiglihii ilaa hadduu galo dibadda waa lagagama hadhayo halkuu caawa ku sugan yahayna waa la og yahay waa lagu daba jiraa kolley dadku wuu dee kala faa'iidaystaa laakiin xogtaa waa lanoo sheegay halkuu ku sugan yahay iyo halkuu ka baxay waana lagu daba jiraa waxaananu ku qanacnay falkaa wixii ka dambeeyey inay xukuumaddu ballan qaaday in sharciga la mariyo oon waxba lagala hadhina hadduu dibadda u baxa iyo hadduu dalalka dariskaa galo iyo hadduu soomaaliya galo iyo hadduu waddankeenna ku jiro in gacanku dhiiglihii gacanta lagu soo dhigayo ilaahayna waxaanu ka baryaynaa si dembigu u yaraado in gacanta lagu soo dhigo sidaasaanu ku qanacnay wixii kale xala ee dawladnimo waanu ka wada hadalay markaa dadku sidaa ha ku bogsado kolley meeshay wax ka dhacaan wax badan baa gala oo dadku danab fara badan buu leeyahay kolkaa yaan waxba lagu habsaamin hawshaasi way dhammaatay waanu isafgarannay assalaamu calaykum waraxmatullaahi بسم الله الرحمن الرحيم كلي هذا الخوال الدمي وفتقي ما أنت يمد أو سيرشدها iyo kii ka soo horreeyay joogay iyo odayaal haddii aanu ahayn iyo madaxdii gobolkaba dhammaan waan isu wada nimid maanta arrinkaasi aad iyo aad u miisaan badan ayaa looga wada hadlay waanu dhammaaday waxaana go'aanku noqday geeriyaha iska daba dhacay mididee waxbay ka dhacday gobolkeennan waa arrinaan sii fogaynoo nin maxbuusoo gaadhi lagu siday kana booday xabadna ay ku dhacday ilaahayna ku dilay ciddii xabadda ridayna la hayo taasi waa arrin aan sii daba dheerayn weeyi dee dhimashadaa alla keenay mooye nimanka saraakiisha ah ee allaha u naxariistee ku dhintay qorilugu meesha la yidhaahdo arrintaasi baa ahayd arrin aad iyo aad u dhib badan oo daba dheer dawladda markaanu wada hadallay wasiiradii waxaanu isla garannay ama ay noo sheegeen in dad idil leh oo ilaa 5 gaadha la hayo imika ninkii gacanku dhiiglaha ahaana isagana marba halkuu marayo waa lala socdaa waana lagu maqan yahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu gacanteenna soo galo wasiiraduna sidaasay naga ballan qaadeen arrinkaa inaan la fudaydsan xataa waxa kale oo ay noo sheegeen ehelkiisii aabbihii walaalihii nabadoonkiisii in lagu maqan yahay iyaga laftoodana oo la soo qabanayo si bal ay dee weli laynama soo gaadhsiin laakiin waa lagu maqan yaho waa la soo wadaa baanu warka ku haysannaa xaqiiqaduna waa sidaa haddii dee aynu diidno dhimashada maxaa loo dhintay nidhaah innagaa markaa caasi noqonayna dee aynu samiro wixii waajib ahaa ee meeshaa yaallayna waa laga marayaa si arrintaasi u dhammaato dadka waxaanu u sheegaynaa sidaa ha lagu qanco dawladduna wax alla waxay kala hadhaysaa ma jirto asalaamu calaykum waraxmatullah xunnadii ilaahay naxariistii jannaha siiya qorilugad lagu dilay ee gacanta ka darani ku dishay iyo kaa maanta ku dhintay halkan isaga laftiisa gacan kaga daran baa dishay cidna ma u dilin waxaan ilaahay u baryaynaa in naxariistii janna ilaahay siiyo
eheladii iyo annaga iyo gobolka iyo dadka wada yaqaan oo dhammaan Soomaaliland oo dhanba samariyeen Allah ka siiyo intaasi waxa weeyaan waa geerida inta kale dawladda iyo wasiiradii hore iyo wasiiradii dambaba markaan isku nimid iyo odayaashii waxaan ku heshiino aan ku wada hadalay dawladduna nagu tiri ciddii falka ka dambaysay ee nimanka qorilugad lagu laayay ee shirqoolka lagu dilay intii shirqoolka ku jirtay dhammaantood waa la soo qabtay waxa maqan ninka kaliya ee xabadda riday ee xabadda ku riday nimanka ku laayay baa maqan dilkuna dee ninna xabaddu ridaa ninna arrinkuu ku dilaa dhammaantoodba waxaanu ku heshiinay kaa shirqoolka ku jiray iyo ka dilay intaba marka la soo qabto in sharciga la mariyo sida shareecada islaamku tirina lagu laayo hadduu 10 qof dilaan qof kaliya 10 kaba shareecadu way u dilaysaa in sidaa loogu dilo hadday 10 gaaraan inta shirqoolka ku jirtay in lagu dilo iyo la dilo oo shareecada la mariyo iyaanu ku heshiinay waxaan arrinka ku dhamaynayna waa sidaa naxariistana Allah siiyo kanna maantana halkan ku dhintayna ninka toogtay saddex nin baa xidhan baa la yidhi ninka toogtay dee nin unba xabad riday ninkaa xabadda riday waa la mid isaguna waa dawladdaana kala saaraysa ninkii xabadda ridayna gaar baa loo saarayaa isagana sharcigaa la marinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi lugud ayaa ku dhintay labada sarkaal ee ciidanka qaranka ka tirsan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariis janno ka waraabiyo eheladoodii iyo qaraabadii iyo asxaabtiina samir iimaan ka siiyo kullu nafs daa'iqatul mawt qof kasta u dhimanayaa sida loo dhinto ma kala duwan waxay u dhintay sidaa ummaddu ka wada naxday ee qaranku ka naxay ee eheladu ka naxday ee asxaabtu ka naxday ee la qaadan waayey ayay u dhinteen dabcan dawlad baynu nahay haddaanay dawlad jirin iskumaynaan canaaneen soo qabashadeeda iyo doondoonisteeda iyo waxa lahaa midna iskuman canaaneen midda mardibay noqon lahayd dawlad bay saraakiil u haayeen dawlad bay ka dhinteen waxaan ka daba joognaa soo qabashadeena waa dawlad weyn dawladnimadu waa tasawiraysa qofka dambiilaha in la qabto oo loo daba joogo طبعا حوار maanta waxa ka dhaca cidna loo daba joogo waa dawlad soo qabataa ma jirto alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaynu leenahay dawlad cidii falgaysata noocooduna noqday loo daba galo oo jeerasha ku jira oo dil lagu xukumo maxkamadaha la jira waxaanu idin sheegaynaa saddexdii fal ee ka dhacay gobolka Gabiley ee mid quruluud ka dhacday iyo labadii fal iska dambeeyay ee jimcihii iyo maanta ka dhacay gobolka taasoo tii jimcihii ay daba joogtay dilkii quruluud oo asxaabtii iyo dhalinyartii ardaydaha ay yar gadoodeen intaasina way dhamaatay tamaantuna waxay ahayd marxuum Mukhtaar Xasan Barre oo isaguna soo maxkamadda la keenay ka baxsaday aan askartii waday ay xabad ku rideen saasuu isagana qadarku ugu dhacay isna Ilaahay u naxariisto eheladii asxaabtii iyo qaraabadiina samir iyo Allah ka siiyo mid kasta xukuumad baynu maanta dawladda joognaa oo taagan waxaan noo timid xukuumaddii goliga wasiirada oo aan waxba ka maqnayn madaxweynekii uma ka maqnaa horena maalintii uu dhacay mudaharaadku waxaa noo yimid wasiiradii iyo xildhibaanadii gobolka waanu isla fahanay sida loo dabagelayo iyo sida loo qabanayana waxa u taala dawladda waxaana banaan lagu qaaday qadarku halkiisa qofku markuu Ilaahay u qoray dhinto laakiin xukuumad ahaan in ay askarigeeda u soo hiiriso oo ay u hiiriso ka nool ee jooga meesha waayo dabcan wuxuu ka dhacay waxaas askarta ciidanka dhexdiisa iyada maanta inaga damaq badan iyada inaga cabsi badan oo ilaashanaysa ciidamadeeda iyo halka joogo inaguna waxaan ku daba joognaa baqdintaasi iyo ilaalintaasi iyo raadintaasi waxaan leenahay asxaabtii iyo eheladii iyo qaraabadii in horta dhimashada aan ku samiro oo dhimashada qof kasta uu dhimanaya waanu wada dhimanaynaa taasi waan ku samraynaa samir iimaan Allah inaga siiyo waxa kale aan ku samraynaa waan aaminaynaa xukuumaddeena aynu daba joogno ee aynu leenahay Ilaahay noo adkee inay soo qabato Ilaahay u fududeeyo soo qabashada Ilaahay taas ka barana Ilaahay noo soo fududeeyo oo gacanta noo soo geliyo si kuwan meesha jooga ay u badbaadaan intaas hadal kooban yahay waxa maanta mas'uuliyadda iyo saraakiisha iyo maxaan ku raadayaan uqaasha iyo wasiiradu ku hadlayaanba waa daweyntii waxa la soo daweeyay soo dhamaatay
الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.